إسلام بالك فصدي أو نمن مريان شو جد كأو قليبة إسلامي إنك هذه يدت فربضن بإسلامتي هواك بالك فصدي مركا ننكي بقى إسلام طوال قصبي يعني والله لينا مكفس جوايس عادي إسلام دي حيري لو كفس هذا قدر الله يكون عذاه إن لكن كسي دردرته عليك علىها سواء قرن إياك الدوريس بس كم سمعني ضد كرة بدولة معارض كوا لكن وحو بربر ديجا يا مر والبا قال ذي كله عدي حمر كم دقيقة أنت موريان تهايسته دولة حلال مركز دلته يعني مقتشة تيجي تونا أنت كهر رئيسة جلي بعيد أنت بو على أيد عمل بس تيجي سكوتن بيبوست كم بدون أركي وحكو قرنا أبو النجي وجاهي سنور كي فرحتك مقطع هذا الملينين يعني دعوانا يا ومركو رئيس هذا بحي ومركو رئيس بحي نيكي أدواج مودي سه لقى عرّي مركز تو بيجوكت بومبان عباه وحضرين يسوي دنيات لكن مركز جريب جو شاهن شعله مرة والبجريب بكو ضدك أو بومبوننا يا وكجذا يا وأرين لا يابله وين بقولك أوهرق له مال بلوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أحسن داوديال كسر هذا برنامج كقيبته وحين كويجينا مقالة قروية حرون تمام الكبوتان وحمانت الله وحري ورية جمال عثمان أما ورية جمال محمد عثمان أو كشق يمد كم يدور باهنذا كهول قلا ضلك إنجليزك هذا وحين يجدونا ورية جمال محا الله وحري مقالة قروية محو السعودي هل كي كدن بيجي محا حقها أو لا يهضم مورها أو لقاها يا حريتان كيسة أريمها زين برنامج كوفا قيد دونا بها ودلو قلاده iyo wariye jamaal qofka uu yahay waxa ila fadhiya Cabdiraxmaan wax ka weydiin doonaa sababta loo xiray wariye jamaal Cabdiraxmaan soo dhow waan dhowahay bar waatay wariye jamaal maxamed Usmaan oo wariye Soomaaliyeedha kana hawlgelay mid kamid ah warbaahinada caalamiga ah oo dalka Ingiriiska fadhigeedu yahay waxa maanta lagu xiray sida wararku ay sheegayaan Garowe maxaa loo xiray xaguus ka yimid jamaal waa nin wariye ah ورياش الصومالي ذا كود وجو حرفته صحافة ونكسن كميدا وانين هير عالمي أو صومالي بس كو كمنين وانين سامين له وبرنامجي ذا وسود دايو برنامجي آد محنكون هاي عالم كوردنا يوجادا وانين كتب يا برنامجي ذي انت بدن لوقده international كا وملكي لها ورباهين لديه جري أما هذا والله ده جوبصور أو أونلاين ميديا أحد يدون الصدق البرنامج الرمى برشدهم باهين جرتي جمال مركي تاريخ ديس انت هاي وحور دور جير كون نقضي أو برنامج كسو سميي قال ذا أركي حسده على الشباب جمال مركا وحكون جرتي برنامج هذا وصوت دوبيو dhanka dad badan ay ka eegeen bomboonin fara badan oo uu sameeyo qolada barnaamijyada ka soo duubay waa dif iyo naadir qof wariyo on iyaga ahayn inuu barnaamij intuu ka soo duubo uu soo gudbiyo jamaal marka ciidamada tababaranaya meelo barwaaqo ah uu qorxiyay marka qolyaha iyo noloshoodii uu qorxiyay islaam baa la kufsaday oo niman Mariano show jidka u galay baa islaaniya ninkeedii iyo dad fara badan baa islaantii haweenka la kufsaday marka ninkii baa islaanta waa la qasbay ama waa la leeyna kufsi waa iska caadi islaantii wuxuu yiri loo kufsada qadar Allah ku dhacday in laakiin ku sii dardarto adiga laha soo garan show way caadi way ka dhigtay astaghfirullah جمال مركز جمال برنامج صوت دياري لكن إنه كسي دردر إسكاي كتبين كترتر بدل يدد كتبين جمال الدولة الفدرال كي هالكاس إسكاي ماشاس يسكاي وحب الدولة الفدرال كذين برنامج ديسي يقاب كو صوتو ينمكو كصوتو يسيدو الضوبي موبيل دي سالك على غير ريبه iyo kamerada lagu duubay oo alkataayba oo qoladan inuu baahintoodii ay leedahay isagu inuu jilaa u ka ah yay gungaar wax la dhaho ay ku sameeyeen warbaahinta hebel ba halka ka duubtay meelay halka laga soo diray hebel ba halka ka waxeeyay kana sidaa yiri yani waxay ka dhigeen barnaamij loo diyaariyay oo isagu codaynta bas oo kulaha
isna ma uunan biyo siinine nimankii noocaas ahaa magacayuu bixiyey oo maxaan ku dhahay ra-iisul wasaaraha magac buu bixiyey inuu yacni dhoohan yahay oo meesha iska jooga uun la halmaala madaxweynaha magac buu bixiyey inuu nin uun xanka gaabsanayo oo lacagta uun urursanayo farabaan ku haya uu yahay qawleysatada lacagta maafiyada waxbuu marka u waxeeyaa naxaybkii iyo colaadii uu nimankan u qabay wuu la sii fogaaday tan laftirkeeda dishu yimid macnaha hadalladan uu madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo ku sheegayo waxay ahayd kadib markii la tarxiilay tarxiilka intay ku sameeyeen kadib wey iyaga dooris bas kuma sameynaya dadka dhan baa dawladda mucaarad ku ah laakiin wuxuu barbar dhigayaa mar walba qoladii kale wuxuu dhigayaa xamar kama degayo intay mooryaantu haysato dawlad xalaali markay dhalato yaan muqdisho tegi doonaa inta ka horeysa jilibba ay dhaanta bu-aala ay dhaama jama wax noocaas oo fara badan iyo waxaa ismayeen bostiyadiisi u dambeeyay bosti ka mid oon arkayay waxaa ku qornaa abwaanageey oo jaahiisa nuurka iyo farxadda ka muuqata aadan malaynayni yaan daawanayaa markuu waraysiga hadda bixiyey markuu waraysiga bixiyey ninkii adduwaaga moodaysa in laga cararay dadkii wada naxeen isbedelka ku dhacay durbe ee duurgalanimada iyo bahalnimada wuxuu yihi jaahiisa nuurka iyo farxadda ka muuqata aadan malaynayn yaan daawanaya arrimo aan aad ula yaabnay bay arrimaha dawladduna waxay diideen in la buunbuuniyo oo la sheegsheego iyo dhacdooyinka ama dagaalada ay kooxdan bostiyadiisii ugu dambeeyay ee bartiisa Facebook ku baahiyay iyadana waxaa ka mid ahay markaad Itoobiya joogto bombaan cabaa waxaad dareemaysaa wadaniyad laakiin markaan jilib joogo shaahan jeclahay mar walba jilib buu dadka u boomboonanaya oo ka gadaya waa arrin la yaab leh waxbaa wiilka u harag lulay meel baa loo wada hey wiilkii marka halka iyadoo taagan tahay yaa wuxuu yidhi transit waxaan ku mari karaa maxaan ku dhahay Ethiopia iyo meesha la yiraahdo Nairobi markaan jilib u socdo calashaan intay nimankan haystaan meesha tagi maayo Nairobi dii iyo deesho way ku fogaadeen barmal iyo suurtagal la'aan wuxuu ka soo degay saaki garow ka degay isla markii uu saa u degayba waxa la wareegay nabad sugidda CID-da ee Puntland garow waa tii qoraaladiisa uu dhihi jiray intay qolyahan meesha maamulayaan dawladda xashan dani uu hambaliyay kadib ma dhihi jiray dani uu hambaliyay malaashu laba dawladood buu kala qaataan malaynayaa Muqdisho iyo garow maadaama isku dhacsanaayeen labada dhinac macnaha xoysi kuwana xumayn bay ku ilaalinayaan bisiri isla markiiba waxaad moodaysaa inay ninkan saxaafadu la dagaalamaysa qolyo youtuber oo wiilkii la oran jiray Ayuub Cabsaaq Ayuub iyo wariyaal kale oo wariyaasha ka howlgala Puntland oo Soomaaliyeed iyo isla markii waxay soo wada dhigeen haddana Xasan Sheekh isku dhaxsanahay ma khawaarijtaan ugu dhax gaban karta marka wari Jamaal bado inuu khawaarij yani ku eedaynayaan tageeska kan yow waa de show mahinadan lagu wada jiray waxba la iskarbinaya hawshu ilaa hawl dawladda taalan bay haday dawladda inay wariyaal galaanba ma ahayn haday wariyaal galayaanna hadduu doono dambiilaha noqdo dawladdu dambi ha ku haysato ama yuuna noqonin waxa waajib ka saaran inuu yahay qofkan qof saxafi ah saxafi kasta meesha jooga inuu difaaco qofkan oo uu doodo oo kadib ninkan iyo wixii uu ku jiray iyo falaalkiisa hadee ama maxkamad baa la horgeeyay oo sharci buu leeyahay laakiin waa inaad u difaacdaa codkaaga ku difaacdaa berri bay adigana kugu imaan taasi waata ilaa hadda maxaa waran ka haynaa marka sababaha warka ka haynaa waxay tahay meesha uu ku xiran yahay iyo waxa wararkan ka haynaa waxay tahay si official horta ka hadashay ma jirto Puntland kama hadlin dawladda federaalkana kama hadlin laakiin intaan ognahay garoonka markii laga qaaday waxaa loo qaaday xarunta CID-da xerada CID-da yaa lagu xiray waxaana ku socda waraysi baa la yiri intaas lagu koobay waraysigii su'aalo weydiinta ee saaka lagu bilaabay 2 saac subaxnimo ilaa iyo hadda oo ku socdaan baa la leeyahay soo dayn iyo taxaabid iyo xidid iyo meel kale u gudbin midna laguma sameeynin waxa la tuhunsan yahay oo warbaahinada qaar ay tibaaxayaan warbaahinada madax banaanayn ay tibaaxayaan inuu ku socday bu'aale inuu lug aad ku tagtid lahaa bu'aale bu'aale iyo butan soo dhaweey bu'aale xan kismaa galgareey kismaa lagu xiran dad u tagi lahaa show wallahi waa lagu xiran lahaa wuxuu yiri show Xasan iyo Axmed isku fiican yihiin dani iyo ninkan isku ma fiicna kabta ka tag qaabka loo sawiray laakiin si kastaba ha ahaatee Jamaal xarigiisu xal ma okay tahay dambayso
suuragal ma noqon kartaa marka maadaama hadda Puntland xaggeeda uu ka dago oo la qabtay xagga dowladda federaalkan horey ay mar intay u qabatay loo tarxiilay marar badan isagu dacaayada ka faafin jiray oo aad maartay magacyo yar noocaya oo madaxda ku lahaa in Puntland iyo dowladda federaalka ay wada hadlaan oo loo soo gacan geliyo xagga dowladda federaalka maadaama uu buunbuunayo kooxahan wararkooda dowladuna ay diidanay waxaan malayn dowladda federaalka haddii ay buunbuunin ninkaas ugu caraqaad oo wax ka qabanayso markii ay haysay ina tarxiisheen laakiin marka waxa la yidhi xafiiska ra'iisul wasaarihi iyo mas'uuliyiintii baa ku hawgtay oo saas waxa weeye loo soo daayay ma badna waxay u badan tahay inay qoladana tarxiilo ma sii hayn karaan ninkan waa nin caalami ah waa nin international nin la sii hayn kara ma is-hortaag shaqo bay ku samayn karaan shaqadiisa bay ku hor istaagi karaan intay xidhaan jamaal meel kuma hayn karaan maamul goboleed iyo dowlad federaal midna dowladda federaalka ba ku dhaanto haddii caalam soo hujuumo difaacan kari lahayd laakiin ninkan warbaahin ajnabi u shaqeeya baasaboor ajnabi u haystaa jinsiga Soomaali ha noqdo shaqadiisuna ha noqoto wadankeena dee ka gasho laakiin nin wuxuu noqonayaa marka iyada ee loo doodayo ajnabi oo saxafi oo warbaahin power leh dabada kula jira sharciga saxaafadda iyo ruulka uu watayna aan ku qaldamine xor u ah inuu barnaamij kasta toobto og inuu siiyo dawladana ay wixii tahay waxa sii deyn TV-giisi waxa la soo hadlay ka wada hadlay TV-gii uu shaqeynayay dawladda Soomaaliya arrintiisuna heer caalam ee noqon haday sii hayaan haday sii daayaan kuwan way u tarxiilayaan diyaaradii uu ku yimid dib loo saarayaan wax kale kuma sameyn karaan ma suuragal ma tamaka in sidii xamar looga tarxiilo garow waa tagu macquulsan waa tahay dadka qaar ba kaftana laga sameeyay halkay waxay leeyihiin garow jilib macnaha wax badan baa la sameeyay yani warbaahin waxa jirta la yaabaysay wax qorayaan kaftan ku dadkuna waa dad kaftan badan waxay dhaheen jilibaa garow kaga qaldantay yani diyaaradii jilib oo raac laayo garow ku qaldantay saak jilib diyaaradda wada kala kaftanka ay wadeen baahay waxay hadii reebel ka xishoodan ku tarxiileen reebel ay ku xidhayaan kuma waxay sameeyaan yani kaftanka social media la wada ee wixiga ruuxba maalin ba magaalada lagu joogaa social media ruuxba lagu joogaa maanta marka jamaal baa lagu joogay walba sidoo shaqo kula dagaalama ku difaaca ku isagu kaftama iska dhaxtuurtoon midnaba isagu raacin dadka difaacayana waxay ku hanjabayeen yani qaadan waa dad baa il qoys ku eegayo meel hebla lagu xidhaya isma aan lahayn tala ayay oo il qoys ku eegayay dadka qaar ba maxaan ku dhahay il saxaafadeed ku eegayay magaalada Daaro magaalada Daaro in lagu xidho tala ay qaar ba laha ala tala imaana saa ku wadinta qaar ba waxay lahaayeen in khawaarij go'tay in la xidho talaabo guul oo hambalyo ah yuudani qaaday qaar kale waxay lahaayeen nin saxafi ah oo saxaafadda sharcigeeda yaqaana oo aan laga garhelaynin yaa isku taataabatay meeshaad ka soo baxdaa ma arki doontaa marka aan nicbaano aan jeclaano ama aan argixiso waa aqoonsanahay aan aqoonsanin ninkani waa nin dokumenti ajnabi ah iyo warbaahin ajnabi ah u shaqeeya wada shaqeyn baa inaga dhaxayn karta wada shaqeynta hadaan diidnana masaafurin bas aan ku sameyn karnaa waa saa hore baa sheegtay dabcan nin wariyo waa nin Soomaaliyeed ma jirto wax waarantii ah waa maamul goboleed ama dawlad Soomaaliya oo jirta hadda ka hor oo ah ninka inuu macnaha dambiile yahay meeshii Soomaaliya laga arko la soo qaban karo ma jirin tafadalkan u jarinba toon goboleed iska wadaayay dabcan wuxuu ahaa marka la fiiriyo wariyaasha farkutiriska ama wariyaha kaliya isagoo warbaahin ajnabi u shaqeeya haddana qoladan aadayay oo waraysi ka soo qaadayay wada marka xarigiisu marka sawir nooc u bixinaya hadda magacan argagixiso fir al-shabaab waa niman Soomaaliyeed Soomaaliyeed ku jiraan dhiig ahaan hay waa Soomaali argagixiso in la yiraahdo oo al-qaacida la yiraahdo Mareykan baa u bixi inagu mayna bixin reer galbeed baa u bixiyay oo magacan ku shaambadeeyay nimanka reer galbeedkii nimanka ku shaambadeeyay mayna qabanin Jamaal oo maxaad u soo wareysatay mayna dhihin haddii reer galbeedkii noocaas ah uu turjumayo oo ay og yihiin
dani wuxuu dangaara ugu raadsado garan maayo mid kala timid ninkani af wuxuu doonaya ka sheego qori nimankii uu gulaba jiro nin qori wato oo nimankii soo raacay ma ah nin isagii qiranaya oo intuu iyagii soo raacay waxaysmaya ma ah waa warbaahin weliba iska dhigtay si madax bannaan inay inside-ka al-shabaab usoo gashay oy usoo duubeen ma inaan tvgii aadnaa oon tvgii cambaarayno oon tvgii la dagaalantay dowladeennuba mise maxaan ku dhahay wiilkii ila waxay ahayd moogtahay maamahaba waxay ahayd dhagaxa la dagaalina ninka kugu soo tuuray la dagaalan tvgii soo diray iyo reer galbeedkii tvga lahaa ee luuqadooda ku baxaysay iyo halkaa jooga oo la arkaa jamaalo keligii ah wax kolba dhan looga celiyo kolba dhan looga xidho ma garanayo wiilkoon baa lasii fogeyn marka kolkii horena in muqdisho laga caydhiyo oo laga waxeeyo siyaabo kale loo xallin karaa jirtay isaga xataa haddii loo maleeyo inuu fikir nimankaa u dhow yahay waa la bedeli karay haddii loo tuhmo inuu fikir nimankaasa u dhow yahay kabta lagala dagaalamayo waa la waxaysmi karay tigree oo Ethiopia argixisa u aqoonsatay argixisa xun u aqoonsatay weliba oo isla dagaalamayaan maalintiiba 100,000 oo meyd ala kala gurto iyo dhuuxa u galay warbixintii wuxuu ka keenay tacadiga ay ciidamada Eritrea ku Ethiopia ka geysanayeen gabdho yar yar oo boqol nin ku dhow ay kufsadeen soo bandhigay Addis Ababa yimid lama xidhin lama tarxiilin ma argixisadeena ya argixisooyin kale ka gaalsan waraysa malihiin waray argixisada wadankeenu leeyahay dadka dhiiqa galin fiir kowde marka ku wada ninkani mucaarad dawladeed iyo muxaafid dawladeed meeshu doonaba ha joogee waa nin war ka soo tabiya waatay ama jeclaysa warka ama necbayso sida ay noo dhibayeen al-shabaab boombooniyo iyo abiyo u dhibaysay inuu tikreega boombooniyo waatay haddana wuu xamil abiyo oo muna odhan gaal ku dhalay soo qabta ee Soomaaliga ah soo qabta muna dhihin ee uu daayay DW iyo warbaahinna kale oo ka waaweyn ruux Soomaali ah oo meeshan jid mariyo uga noqdan bay laayihiin yaa khatar kasta noocaas u bareera marka waa indhaha caalamkana wax lagu dagaalamo aad u garan mahayo waatay xarigiis marka maxaa kale isaga maadaama maanta soo garoonkii ka dagay Garowe la xiray in kastoo wali aan loogin wuxuu u socday laakiin laga yaabo inuu shaqo u socday maxaa loo gudbay marka Puntland waxaan kale ahay sakashan haday sakalka gasha gacantaadu laguma dhuftay waa la mirmirsiyaa qofkan Soomaaliga ee aqoonyahanka ee tayada leh hadaad u malaysa xataa fikrad qaldan inay ku jirto lagulama boodee waa laga meeraa waa la mooliyaa waa la kasbadaa hal badan oo wiilkan in la eriyo la daba ordaan ahayn yaa jiri karay haddii xataa nimanka inuu buunbuuniyo la tuunsan yahay qaab kale oo loo geli lahaa oo loo kasban lahaa baa jirtay tii ma ayna samaynin waa la dagaalamay ciil cadaab burka doortaa baa leeyahay nin la dagaalamay oo shaqadiisii lagula dagaalamay oo xataa isagoo isla quman la dagaalamayna isna uu dagaalamay isagoo xataa nimanka inuu jeclayn laga yaabo oo shaqadiisii uu ka gashay yaa markii la eriyo uu dagaalamay marka jaratadu istaagi iyo meel la sii yari karin oo ka soo horjeedsan sida daraadeed Puntland waxa la xarigo xal maaha wixii jamaal aad ka tirsanaysaan wada hadal iyo miis ku dhameeya wixii dambi aad aragtaana kala hadla ama uu garowsan ama uu idinka qancin laakiin isagana fogeyn u noqon innagana dhamaantay fashil bay nagu noqon aad u maasantahay waxaan rajaynaynaa wariye Jamaal Maxamed Cusmaan in xorriyadiisa loo celiyo oo uu dib xorriyadiisa u helo maadaama uu yahay wariye Soomaaliyeed oo ilaa iyo hadda aysan jirin dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada midkoodna cid u jirtay waaranti xarig ah ama qabasho ah ama in uu wax dambi ah uu galay waxaan rajaynaynaa in xorriyadiisa uu dib u helo tan iyo kula dambe waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgeliyo